bisha ramadaan waa bisha sagaalaad ee sanadka hijiriyadii ama dayaxa lagu tiriyo ka mid ah bilahaasi midda ugu barakada badan weeye. arrimo gooniya ayay leedahay, gooni bay u sutan tahay muslimiinta agtooda. ilaahay baa ciseeyey tabaaraka wa tacaala oo ku waajib yeelay muslimiinta bishaan inay soomaan bisha ramadaan maalmaha dhammaan oo maalin walba cibaadadeeda gooni ay u leedahay, taasoo muslimku ugu dhowaanaya rabbigiis, xasanaadkiisana uu ku siyaadsanayo, jannadana uu ku gelayo biidni illaah. iyadoo taa lagu darayo inuu soomku yahay oo bisha ramadaan la soomo mid ka mid ah arkaanta shanta ee islaamka, taasoo ku taagan yahay. bisha ramadaan maxay uga duwan tahay bilaha kale? waxyaalahay uga duwan tahay bilaha kale waxaa ka mid a waa bil soomkeedu uu yahay waajib oo bilaha kale sidaa uga soocan, oo qofkii si kasta oga tagaa sugoon cududaar haysan ilaahay uusan ka aqbalayn waajibtoona iyo sunnaba. soomka bisha dhexdeeda la soomo maalmaha kala duwan waa midka keliya ee waajibka ah ee ilaahay xaggiisa ka imaaday ee muslimiinta dul saaran. laakiin maalinta caashuura, maalinta isniinta iyo khamiista, yowmu carafa iyo maalmaha kaleba ayagu maalmahaasi waa sunnooyin, waa wax loo jideeyo qofka muuminka si uu khayrka usii badsado. maalmahaasi waa la jecel yahay inuu qofka muuminkaa soomo, laakiin waajibkuma ahan. kadaalika salaatu taraawiix waxyaalaha goonida la tahay weeye bisha ramadaan, salaadaasoo ah mid cishaha ka dambayso cishaha raacda. waqtigeeduna waxa weeye waqtiga salaada cishaha laga bilaabo ilaa salaada subax la gaarayo wax yar ka hor. waxyaalaha kale bisha ramadaan la gooni tahay waxaa ka mid ah sadaqatulfidri waxa loo yaqaan, taasoo ah mid waajiba qof kastoo muslim oo caaqil ah oo karaya, naftiisuu ka bixinayaa iyo qoyskiisa ee uu biilayo, isagoo dadka u baahan iyo fuqarada muslimiinta siinaya. ramadaanka soomka la soomo fadli aada u weyn ayuu leeyahay, fadligaasuu uga soocan yahay bilaha kale iyo soomamka kale ee la soomay sunnooyinka ah. axkaamta ramadaanka ku saabsan biidni illaahi waa idiin soo gelinaynaa oo waan idiin soo gudbinaynaa. hase yeeshee arrinta aanaynu ka warramayno waa soo dhoweys ramadaanka aynu soo dhoweynanoo qaabilayno, iyo arrimo kale oo kaa dhigaya qof faraxsan inaad noqotid, fawaa'id kale oo helaysid taasoo sugitaanka ramadaan aad sugaysid ku farxaysid. fadliga ku soo arooray bisha ramadaan iyo ramadaanka gudaheeda la soomayo, sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka kariimka aad bay uga buuxaan, aad baana loo faahfaahiyey, qodob baana loo kala dhigay. waayo arrintaas waxay ka mid tahay arrimaha jannada kuu furaya, naartana kaa xidhaya, shayaadiinta waaweyne madax adag ee kibirka badan lagaa xirxidhayo bishaa dhexdeeda. qofka muslimkaa fursad buu u helayaa marka, fursaddaasoo aada u weyn inuu macaasida ka fogaado, rabbina ugu dhowaado cibaadooyinkaasoo u dhoweynaya jannada iyo raxmadda alle, kana fogeynaya carada alle iyo naartiisa, dembiyadana loogu dhaafayo. qofka sooma bishaas isagoo alla rumaysan, ajarna xisaabsanaya mid weyn weliba, ajarkaasi wanaaggaasoo ka mid a in loo dembi dhaafayo. waa qof ay guuli u soo hoyatay. soomka bishaa la soomayo macnaheedu ma ahan cuntada iska daa oo gaajo, sidaasoo keliya ma ahan ujeedka laga leeyahay, waayo dad badan oo soomayaa jira, hase yeeshee fadligii iyo wanaaggii bisha ay lahayd seegaya. soomka la soomayo keliya ma ahan cuntada oo keliya inaad ka soomtid oo aada cunin, waxaa la doonayaa inaad ka soomtid hadalka xun, carabkaada inaad soomisaa la doonayaa, caqligaada inaad soomisaa la doonayaa, qalbigaada inaad soomisaa la doonayaa, dareemayaashaada iyo wax kasta oo wax ku dareentid sida qacmaha, sanka, indhaha inaad xumaanta ka ilaalisaa la rabaa oo ka soontid. inaad ku dhacdid macaasida lama doonayo iyo dembiyaasha, waayo albaabadii dembi dhaafka iyo toobadaa kuu furan, kuwii rabbi kuu dhoweynayaa kuu furan. naftaadaa la doonayaa inaad ka daahiriso, ka nadiifisid dembiyada, xagga rabbina u noqotid noqosho run oo saxiix ah. waxaa kale oo ramadaan uu goonin leeyahay oo bishaasi aysan bilaha kale la wadaagin, waxay xaqiijinaysaa bulshadu inay isku xirnaadaan oo iscaawiyaan, waayo qofka muslimkaa wax haystaa ramadaanka dhexdiisu wuxuu dareemayaa in muslimiintan waxba haysan loo naxariisto si uu bilaha kale u dareemin, waayo gaajadii buu arkayaa, waxyaalihii kale ee uu ka soomayey ayuu dareemayaa, waqtigiisii arrintaasu ku gudanayaa. dadku inay isku dheelitirnaadaan, bulshaduna iscaawiyaan oo isgarab istaagaan ayay bishaani dadka ku boorinaysaa, waayo islaamka taas ku booriyey oo ay ka mid tahay waxyaalaha dadka lagu caawin karo sadaqada, sakada iyo wixii kaloo la mid ah. jirkaada ayaad xifdisanaysaa caafimaadkiisa, waayo saacido gudahood waxaad ka soomaysaa oo aad cunayn oo aad ka istaagaysaa cabitaan iyo cunitaan. jirkaadu nadiif buu noqonayaa, dufanka iyo sunta ku dhex jirta waa ka soocmaysaa oo waa ka baxayaan. fursadna waxaad siinaysaa
xubnahaada gudaha ku jira uur ku jirtaada si ay u hesho wax cun oo ah raaxa inay dareento, nashaadkeeda iyo firfircoonineedana ay soo noqoto, si hadhow ay u goda gasho camalkeeda iyo shaqadeeda si weliba dhammaystiran. waa qodob muhiima walaalayaal arrintaa inaynu dareenno. hadalka laga warramayo ramadaan iyo howlaha ku dhex jira iyo wanaagyada dhex yaalla ma ahan mid dhammaanaya, waa inoo soconayaa insha allah ramadaanka ka hor iyo markaan gaarnaba biidni illaah. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.